بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله الكسر دو برنامج كبر الدين هذا سؤال بنكو الدين الدينية حديت سؤال شاكك جوابته هدية بنكو سننا سؤال ده وين هاي ودين ما سؤال دينية وين ودين هذه يا عنكو ودية مركا ودوا سؤال شو حوي واحد شاكتا صدح ذقف عذاب كالنارتا وجوهر قلية الوش ضي كوجبنية نعوذ بالله وكوي كوجبنية وكوي قف ديجا جانت جان كوديجلا جان كوديجلا ها كوي جوهر ريك ده قارب بدنو نارت قلية شرم موتاي لكن قارب نبي ينوش شيء حديث بكوسو أروري صدح ذقف وجوهر ريك نارت قلية حديث بكوشرته تعرف الصلاة كود تعرف الصلاة جان كوديجلا كي كان لكم بسم الله الرحمن الرحيم يا كان لكم يا هاركان كلنا يشيء وهاركان كلنا ما قرنايه نما لها واد isku day wanaagsan insha Allah wad ka faa'iideysan doontaa su'aasha marka laga jawaabayo halkan soo yare istaag war dad badan baa ka jawaabi doona insha Allah waa ma sha Allah Allah yaas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله الكسر هو برنامج كبر الدين هذا آيات برنا إن شاء الله سؤال بنكو الدين قف كي كجوابنا هدية بنسيننا سؤال شاسوحة أي تهاي صدق قف وجوه الرية إلهي بنو كم قالنا عذاب كالنار لو قلت ريو حديث بين النبي جنوب شاقي مركز صدق قف محيك ليهين. الشيخ دي علم فلواه. شيخ علمي قيس دي مقرنيسا يعني كبح وايو دي سيده يستحي ودي وايه ها اي كودي waxaan ku dhaahday qofka taariku salaadka ha waxaan ku dhaahday qofka gacan ku dhiglaha saas baan u malaynaya wad soo dhaweysay ma sha Allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa isku day wanaagsan yaa dhameystiri doona السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. magacaaga walaal mubaarig ali abdillah mubaarigow ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diini ku weydiinayna dad ka jawaabto hadiyad baan ku siinaynaa biidnillah su'aashaasi waxa ay tahay waxaad sheegtaa saddexda qof ee ugu horeeya ee naarta lagu tuurayo ilaahay baanu ka magan galnaa waxa weeye ka koowaad waa sheekh cilmigiisa dadka gaarsiin waaya ka labaadna waa xawaaye taariikh salaadka ka saddexaadna waa beenaala kadaab wad soo dhaweysay waan ka xumahay laakiin isku day wanaagsan baad samaysay soo dhawaad السلام عليكم. السلام عليكم. magacaaga walaal فيصل محمد عبد الله فيصل oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aashan waxaan ku weydiinaa su'aal diiniye saddexda qof ee ugu horeeya cadaabka naarta lagu tuurayo xadiis baa sheegay bal saddexda qof maxaad ka garanaysaa noo sheegaysaa saddexda qof hadaan isku darmido waa waalidinkaarka hay qofka labaadna waxa weeye imaamka aan caadilka ahayn ka saddexaadna wuxuu noqonayaa ninka cirada leh ee isnisinaysta ma sha Allah soo dhaweysay raganimo walaal waxaan ku soo dhawaataa barnaamijka baradiintaada su'aal diiniyan ku weydiinaynaa insha Allah qofkii ka jawaabana waxaan siinaynaa hadiyad baan siinaynaa biidnillah marka walaalo waxaan ku weydiinayaa saddexda qof ee ugu horeeya cadaabka naarta lagu tuurayo ilaahay baanu ka magan galnaa Allah inaga badbaadiyo inaga iyo wixii islaamaba laakiin saddex baa nabigu sheegay xadiis bay ku soo aroortay saddexdaas maxay yihiin وتصام في اليوم حنوم ليهين صدق نو إسلامه مدي وتاجر مدنا ونين قارئ قرآن كا سوى نحسن وآخر يقعد معن ككلنا وحوي جيسي هلية أو هلية لماذا يجيسي لماذا مشاهد لماذا حوصة بين سيدات كوي هذان جيسي باتي الله أكبر نيك أسافر إيش يجلس على مقعاقي عبد الرشيد شام محمد عبد الرشيد صدق ذقف واحد كليهين سيدا وشجع عبد الرشيد وانين قارئ قرآن كبرتي أو كعمل فلواي ينين تاجروا مرول بس هذا قدر بحياة استثناء أو بحياة ينين جهاد كنتوا قليو شهيد نقضي dagaalka uu galay marka in la dhaho nin geesiye saddexda qof oo runtiisa waa islaam laakiin de qalbiga kama muslim ahayn ilaahay dartiibay jeedin ninkaas furay lacagtiisa uu leeyahay
qabso mabruuk hambalyan ku leeyahay walaal saad aragtay barnaamijka walaal barnaamijka aad buu u wanaagsan yahay waana barnaamij aad u fiican laakiin waxaan jeclaan lahaa inay barnaamijka sidan ka sii ballaarisaan oo wax dhalinyarada wax taraya oo ubadka soo koraya aad wax u taraya cilmiga diinigu waa muhiim dad badan baa jira oo salaada iska tukada laakiin aan garanayn waxa ay ku tukanayaan alxamdu bay iska akhriyayaan alxamdu waxa macnaheedu tahay ma garanayaan marka waxa wanaagsan dadka in loo masaajidka lagu xilqado lagu sameeyo oo dadka lagu baro quraanka la baro oo macnihiisa la baro oo markuu subxaana rabbiyal a'la uu leeyahay uu fahmo subxaana rabbiyal a'la macnaheedu waxay tahay Soomaad garan dad badan baa masaajidka walaal iska joogo aan garanaysa inta garanay marka waxa jeclaan lahaa in xilqado masaajidada lagu sameeyo si wanaagsan billahi tawfiiq walaalkeena talada uu soo jeediyo oo talada aad wanaagsan waanad maasantay jazakallahu khair السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا المقعد. حرير محمود بلا. حريرو كسر برنامج كبرد دين تادا آيات برانيسا سؤالنا ونكوي دينها. سؤال شدت كجوابته هديت بنكسيننا. سؤال شاسوحة أيتهاي النبي عليه الصلاة والسلام مركو هجروني أبو بكر بالسعودي. لكن هجرة وحكوا الرئيسين وتجي مجال لنا ضعيف. oo marka dhagax baa la soo dhaco waa la soo dagaalamay waa la soo eriyay magaalada Daif markii uu aaday nabiga saxaabi baa la socday saxaabiga ma garanaysa Umar bin Khattab ما واسكو دايس سو wanaagsan Umar hadaad sheegtay waad soo dhaweyso saxaabada waa taqaanaa laakiin waa saxaabi kale waa ka xumahay isku day wanaagsan baad samaysay jazakallahu khair hay kale السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ku soo dhawaada barnaamijka baradiintaada su'aal baan ku weydiinaynaa su'aashaas waxay tahay nabigu markii uu magaalada Daif tagay saxaabigii la socday walaal waxaan ma inuu yahay maxaa Sayd ibn Harisa Sayd ibn Harisa وصحيح ما وصحيح سيد ابن حارثة وي ما قاعد يشك مركور عبد الرحمن ولا عبد الرحمن نكم باص حي سؤال سيد ورنتي سيد وي إلهي الله كهذا هذا يقول قبص العقد هذا سادوا رأيت برنامج والله قاعد بدور سيد رجل قاعد في عنده وكميه من إذا كنت قاعد ضابر حاجة جديدة إيه تدك حاجة جديدة حدد كل شيء سادات بدن باكو داونية أو حويه برنامج كان للصعدة مرة حدد كان فرع بدن له ما حد كله تاني لاين من الدين تبرتان هي dadka waxaan u sheegay imika waxay xoog u saareen xagga maadiga kan xagga diinta aad u xoog u saareen ina xoog u saareen diinta ku boorin lahaa si wanaagsan aad bad u maadsan tahay hambal yana ku leeyahay waay magacaaga Siyaad Maxamed Ismaaciil Siyaad Maxamed oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniyan ku weydiinayna waxaad sheegaysaa saxaabigii markii uu dhintay malaa'igtu ay dhaqday meedkiisa markii uu dhintay inagu markaynu dadka muslimiinta markay dhintaan de bani aadan baa dhaqa meedka laakiin isaga wuxuu kaga duwanaa malaa'igta ilaahay baa intay soo degtay dhaqday meedkiisa saxaabiga waxaan mareynayaa Jaafar ibn Daalib جعفر وانكحوا ما هي جعفر ما هلا كي واسكو داي اسكو داي وناغسن باد سميس السلام عليكم عليكم السلام walaalo magacaaga Cabdi Jaabakor Cabdi Jaamac ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal baan ku weydiinaynaa diiniya waxaad sheegtaa saxaabigii malaa'igtu ay dhaqday markii uu dhintay dagaalkii Uhud buu dabcan ka qayb galay markuu dhintay malaa'igta ayaa meedkiisii dhaqday wuxuu Xamsi حمسي ماي ولا لو كحماهي لكن اسكو داي وناكسن ما شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ولا لو مقعاga خضر عبدي ولا خضر oo ku soo dhaw barnaamijka baradiintaada su'aal baan ku weydiinaynaa su'aashaas waxay tahay saxaabigii markii uu ku geeriyooday dagaalkii Uhud ay malaa'igtu dhaqday karaamo u lahaa darteed سعد بن وقاف سعد بن أبي وقاص سعد كمو dagaalkii Uhud نبي جابوه كتب بيسعد ديماله السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله ولا المقعد محمد وكسود هو برنامج برادين هذا سؤال ديني أو كويدين الناس سؤال شاسوحي تهاي واحد نوشك تا صحابي ملائكته ميت كيس عيد قضي حذيفة حذيفة هذا الدجال كيف حدبوكم قريودي حذيفة أنا أقرأ هرتالك يشوف حذيفة والله النبي جابوه كدم بي
السلام عليكم السلام magacaaga walaal cabdicasiis su'aal baan ku weydiinaynaa diiniya su'aasha aad ka jawaabto hadiyad baan ku siinaynaa biidnillah su'aashaas waxay tahay waxaad sheegtaa saxaabigii markii uu dhintay dagaalkii Uhud buu ku dhintay marka malaa'igta ayaa meydkiisii dhaqday saxaabigaas noo sheeg magaciisa xandala maxaa tidhi xandala war waa xandala ninkaasaa gartay maasha Allah Allahu akbar takbiir warudtay Allahu akbar ninka su'aal adag buu furay sheekh Hiidi lacagta ibn Aamir xandala ibn Aamir buu ahaa wuxuuna ku geeriyay dagaalkii Uhud waxaana malaa'igta ayaa meydkiisii dhaqday nabigaana inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam hambali aroos bana waa sababtii malaa'igta u dhaqday ma garan karsaa waxa janaabu qoyday janaabu qabay deetana isagoo janaabo ayuu soo baxay jaadku soo baxay deetana waa la dilay deetana janaabadii waxa ka dhaqay malaa'igta Allahu walaashu aad buu fiican dadka ku daawanaya maxaad kula talin lahayd diinta bartaan inay diinta ku dhaqmaan oo bartaan aad baad u mahadsantahay hambaliyo السلام عليكم وعليكم السلام walaal magacaaga sheeg waxa la yahay Yuusuf Ismaaciil Yuusuf oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniyaan ku weydiinaynaa waxaad sheegtaa nabiga muadinkiisii wuxuu la nabigu muadina fara badan rag badan baa u aadaami jiray salaada markii la tukanayo laba kamid noo sheegun mid wuxuu ahaa Bilaal ka kalena wuxuu ahaa أبو هريرة وتسولو ويسمى ما شاء الله مرة هذا بلال شيكتين دين تيقانا باتاي لكن صحابي كلام رباه وكحوا معي لكن تسولو ويسولال السلام عليكم السلام مقعاق ولال عبد الخالق ولا لا عبد الخالق وكسولو برنامج كبرد دين هذا سؤال أيام كويدين لنا سؤال شاسوا حيتاي واحد نو شيكتا لبا نين أو كميدا أما لبا صحابي كميدا مؤذنين تنبي جو قدمي تشري بلال بن رواح يمعاد بلال يا معاذ بن جبل ما فيها بلال يا معاذ بن جبل وتسود ويسادونا ما شاء الله سودي ونكسن ما شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة والله لو waxaan weydiinaa su'aal diiniya kuna soo dhawo barnaamijka baradiintaada magacaaga markuu ugu horeyso magacayga Nagiib Salaban Nagiib Salaban najiibo ku soo dhawo barnaamijka su'aashu waxay tahay waxaad sheegtaa laba kamid ah saxaabadii nabiga uu aadaami jiray salaada marka la tukanayo Bilaal iyo Umar bin Khadaab بلال يو عمر بن الخطاب وتسود ويسي ما شاء الله ما شاء الله بلال ولا قرنيا لكن صحابي ابو كرو كسو دو برنامجka baradiintaada waxaad sheegtaa laba kamid ah saxaabadii nabiga uu aadaami jiray salaada بلال بكر بلال يا بكر بكر من صديق أبو بكر صديق ما يود سود ويسي ما شاء الله السلام عليكم عليكم السلام magacaaga walaal maxamed oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniya ku weydiinayna hadad ka jawaabto hadiyad baan ku siinaynaa insha Allah su'aashu waxay tahay waxaad sheegtaa laba kamid ah saxaabadii nabiga uu aadaami jiray بلال يوم مكتوب بلال يو أو مكتوب أو مكتوب كان بلو magaciisa halku ka bilaami jiray talo أو مكتوب uu yahay laakiin magacii ka horeeyay ma garanaysaa مكتوب وتسود ويسي لكن هذه أدبد سود ويسي يا بقول كيف سجاشر واد صح لكن وحن ربنا ده بقول كيف بقول قف صحيح واد ما هتسنتهاي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله السؤال دينيا كويديننا سؤال شاس waxay tahay waxaad sheegtaa labadii saxaabi ee nabiga uu aadaami jiray بلال بن رواح يا عبد الله مكتوم بلال بن رواحة عبد الله بن مكتوم يا عبد الله بن مكتوم وتسود ويسادونا هذه أدبد ما شاء الله السلام عليكم شيخ والله magacaaga Faisal Salaban Faisal ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniya ku weydiinaynaa su'aashaas waxay tahay waxaad sheegtaa laba saxaabi oo markaa nabiga uu aadaami jiray oo muadiniin ahaa بسم الله الرحمن الرحيم هذا نسكت لبدا صحابي وحا بلال بن رواحة صحابي كان وحا ابن أبي مكتوم لكن magacii ka horeeyay ma Abdullah ba ma Umar ba ma Ali ba ابن أبي مكتوم هو يا هو صح ده سود ويسي لكن ابن أبي مكتوم ابن أبي مكتوم لكن ما حكوا ريني يثور مجلس الرسمي عمر بن أبي مكتوم سوى ناكسن صوصي العتي سوى سعنيكاس عمر بن مكتوم وي marka su'aasha saxda waxa weeye walaalayaal nabigu wuxuu lahaa wad mahadsantahay horta in hana iga tagin su'aasha saxda waxa weeye
bilaal iyo camru ibn ummi maktuum marka labadaa nabi ayaa ahaa labadaa saxaabi ayaa ahaa labadii maartay nabiga u aadaami jiray rag kalena way jireen oo sacad ibn qurada iyo isaguna maka ka aadaami jiray saxaabi kale masaajidka quba ka aadaami jirayna wuu jiray laakiin labadaa saxaabi baa ugu caansanaa oo midina salaada subax aadaanka hore u aadaami jiray midna aadaanka dambe marka walaalkeen faysal baa gartay faysal wala soo aragtay barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim barnaamijka waxaan u arkaa barnaamij aad u qaaliya baradiintaada barnaamij aad u qaaliya maan dadku aad bay uga liitaan baradiintaada dadka in diintoodii la baro diintoodii dib loogu soo celiyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaya ma sha Allah aad iyo aad jazakallahu khayran ilaahay subhanahu wa ta'ala hayd ka abaal mariyo cid soo abaabushay iyo cid ka shaqeynaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala hayd ka abaal mariyo inta la idin sheegaya maanta dhalinyaradii hadii la weydiiyo Rolando aabihii iyo hooyadii iyo reerkooda wuu sheegaya miisi hadii la weydiiyo aabihii iyo hooyadii iyo reerkooda wuu sheegaya laakiin maalinta qiyaamada ilaahay nabigaaga wuu ku weydiin doonaa alayhi salaatu wasalaam qabrigana ilaahay kugu weydiinaya mar rabbuku ama diinuku ama nabiyuk haddaad nabigaaga baran weydo ciqaab baa kugu bilaabmaya sidaa daraadeed dhalinyaro waxaan idin sheegaynaa hadii ilaahay ka dhigo barnaamijka waa soo dhaweynaynaa barnaamijka intan ka siyaadiya barashadiisu aad iyo aad u tahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka idin saaro meesha ka soo saarteen Allah idin saaro dad kale wax tarba u noqonaysaa برشة ديننا وينغنيسا ما شاء الله ما شاء الله الله يديم بركة الله يبارك همبلي مبروك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله الواحد كسر دواتها برنامج كبرد دين هذا تدوينها هي سؤال ويديننا إن شاء الله سؤالها سنو سؤال الدينية نقفكي كجوابه أي المركة نسينا إن شاء الله هديت سؤال شو جوهر يسوي حوي واحد شاكتا سورة القرآن الكريم كهي اللي هذا سورة إسراء وسورة تضبيط تبنات سورة الإسراء ولا هذا مجع لبعض وإلا ده هي مجع لبعض بلاد سورة داسي مرة سورة الإسراء مجع عيد لبعض بسم الله الرحمن الرحيم هذا نسكت أيها حويان إسراء والمعراج نعم ها سورة الإسراء وصحوي لكن مجع لبعض بلاد مجع لبعض حويان إسراء ما سورة إسراء سورة إسراء إسراء وحويان سورة waxay ka bilaabantay ma garanaysa ma xasuusta maxay ka bilaabantay subhana alladhi asra bi 'abdihi hay magaceedu marka muxuu noqonay magaceedu حويان سورة سور مقلين يا سورة يقول رجسة بماله من أصل عبد الله من المسجد الحرام إلى المسجد أقصى إلى أقصى ما أقصى مركلام كسينية كانس كلام سورة واحد للسبحانه الذي أسرى بعبده سؤال قاسك بلا مسا مركب مجا عيدو هذا ولي بكسي كلمة آية ده هرت نحن ذي كتيرة مجا عيد الله بعد آية ده لفت كده كل شيء أسرى بعبده أسرى لنا إسراء ما يدوا والله هذا صح لكن سبحان أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بعده إنه كان عبدا شكورا ولا ما يدم لها إن شاء الله يدم لها السلام عليكم والله المقعد محمد سلام ولا محمد سليمان محمد أو كسور دو كاميرا كسور السلام عليكم محمد أو كسور دو برنامج كبرد دين هذا واحد برنامج واحد يجي جواب سؤال ديني كوي دينية هذا قرأته إن شاء الله لعقبة كسينية بإذن الله سؤال شاسي واحد شيكتا سورة اللي هذا سورة إسراء أو سورة تضبيط من هذا القرآن مقع على بعض إلا ده إسراء waxay leedahay magac kale la waxayeen kulli maanta nabad gaadhay magac bay lahayd waxay magacii سورة إسراء ومعراج أي كور رميسا لكن مقعدة وانكو مقعدة إمك مساحفته كتها لو إسراء لكن مقع على بعض بالله هي ويدنا مرتعانا يكتها هي مركا لبا مقع وكل الله لكن ميدون بنكو ديانو معرج ملا معراج ماي سورة المعراج كما ورسي واحد كور رميسا مركي النبي قال العلمي لكن مركي سر الله قاضي كما ورميس حالك اللي كور رميس سؤالكم يبدأ دم لها وتسكت ده ونكسب بعد سميسي جيسيني ما تموتشي إن شاء الله الله حافظه السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله لما قاعد مقعي إبراهيم كسر برنامج كبرد دين هذا سؤال ديني كويتين إنها تذكرته لعقبا كسرنا إن شاء الله
su-aashaasi waxa weeye suuradda qur'aanka kariimka ah ee la suuratu Israa suuraddaas magac labaad bay leedahay laba magac oo kale leedahay saddex magac bay leedahay laakiin mid kamida magaceedeeda Israa baa la yiraahdaa magac kale oo aad garan karto haddaad noo sheegi karto insha Allah waan ku dhawaay walaal barnaamijka suuraddaas haddaan isku dayo waxa weeyaan suuraddii barakaysan subxaana alladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa alladii baarakna waxa weeyaan nuriyahu min aayaatina innahu huwa samiic maasha Allah ma si wanaagsan waad garanaysaa aayaddii laakiin magaceeda al-Israa waa la yiraahdaa oo masxafka imika markaan akhrino suuradda 17aad al-Israa baan arkaynaa laakiin magac kale oo masaaxifta sidoo kale waad ku arkaysaa dad kitaab quraan oo masaaxiftu way kala duwan magac kale leedahay suuraddaas marka magacaasi haddaad xasuusan karto saasoo ma garanaya inay tahay suuraddii markii nabiga la dheelmiyey ay soo rogay laakiinse magaca Israa waxaana dee aayadda hore ay ku jirtaa baan filayaa oo subxaana alladii marka asraa bicabdihi maxaad ku socoli aayadda hore ku jirtaa dee oo ay aayaddu maxay ka bilaabaysaa subxaana alladii subxaana ibraahim uu soo dhaweeyay run ahaantii suuradda al-Israa la yiraahdo horta saddex magac bay leedahay mid maaragtay ibraahim baa sheegay suuradda waxa la yiraahdaa subxaan suuratu subxaan hadaad maqasho waa Israa baa looga jeedaa magaca kale leedana waa bani Israa'iil waxay ka warramaysaa reer bani Israa'iil oo dhan bay ka warramaysaa qisadaas marka saddexda magac baa ay leedahay suuratu Israa suuratu subxaan iyo suuratu bani Israa'iil waan ku siinayaa marka hadaba lacagtaadii iyo hadiyadaadii qabsoolaan ukaadi sidaad u aragtaa wala barnaamijka والله barnaamijkan waxa weeyaan waa kullee waa barnaamij diinaya oo anfacaya bulshadeena wax ka wanaagsan ma jiraan in maanta marka lagu weydiiyo waxyaabo kale oo ka jawaabnaayo aan fiicnayn oo dee tartan u soo galaa laakiin se maanta waxa la weydiinayaa inuu ka faa'iideysanayna diinteena islaamka dadkeena daawanaya maxaad kula talinaysaa inay diintooda bartaan maxaad kula talinaysaa diintooda bartaan inay ma garanaysaa ay dee ka faa'iideystaan meelaha dee lagu soo diintu lagu faafinayo masaajidada iyo maraakiista ay dee tagaan oo ay diinteena u dhigan ugu leedaan bartaan siday waxyaabo kale u bartaan ma sha Allah Ibrahim Hambalyo wad mahadsantahay barakallahu assalaamu alaykum warahmatullahi assalaamu warahmatullahi wabarakatuh soo yaro dhawoolaa السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله magacaaga walaal deeqad jaamac deeqo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniyan ku weydiinaya haddaad insha Allah ka jawaabto waxaan ku siinaynaa hadiyad su'aashaasi waxa weeye suuradda quraanka ee la suuratul mujaadala ama qad samic gabadhii ay ku soo degtay arrinkeeda qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha gabadh baa nabiga maaragtay la doodaysay marka gabadha nabiga la doodaysay suuradda qad samic ay ku soo degtay magaceeda haddaad xasuusato ما حسست قول dhib ma laha wad isku day fiican baad samaysay ma sha Allah Allah ku barakeeyo assalaamu alaykum alaykum rahmatullah walaal magacaaga abdixaafid salaam alayh abdixaafidow ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniyan ku weydiinayna haddaad ka jawaabto lacag baan ku siinaynaa insha Allah su'aashaas waxay tahay suuratu qad sami'a ama suuratul mujaadala gabadhii ay arrinteeda ku soo degtay magaceeda waxa weeyaan gabadhay ku soo degtay gabadh saxaabiyada oo ninkeeda ay isqabsadeen oo deetana ninkeedu uu wax la yiraahdo dihaar uu ku yiri hooyada kale baad iga mid tahay halka tafsiirka ma gaadhi horta waan gaadhi laakiin waan xasuusan imika way ugu wareegaysaa waan xasuusan dhima laha ma sha Allah Allah ku barakeeyo السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga adeer خالد محمد عثمان خالد oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniyan ku weydiinna hadii aad ka jawaabto insha Allah hadiyad baan ku siin doonaa biidnillah waxa weeye su'aashaasi waxaad sheegtaa maalinta loo yaqaan yawmu shaki maalinta shakiga oo aan la soomin maalinta shakiga yawmu shaki baa la yiraahdaa lamana soomo ilaa de qof maartay caadaystay oo maalin walba maalinta waqtiga ay ku beeganto mooyaane laakiin waa maalin nabigu yiri lama soomo oo waxa weeye yawmu shaki baa la yiraahdaa waa shaki ba ku jira maalinta Ramadaan ugu dambaysan Ramadaan maalinta ugu dambaysan Ramadaan maalinta ugu dambaysan shaki bay gashaa de maalinta kala shakisan yahay Ramadaan de maalinta
shawaal la isku hayo dama shawaal been galayo maalinta ramadaanna way noqon kartaa maalinta de ramadaan baa lagu jiraa shaki ma noqon karto moogta ama waa ciidii ama waa ramadaan labadaa midin weeye laakiin maalintan in la soomo ayaa mamnuuca ilaa qof dee waqtigiisa ay ku soo beegantay mooye maalinta 9 may dhib male waad isku dayday allah ku barakeeyo soo dhawo assalaamu calaykum calaykum salaam magacaadeer takhaala cabdikhaaliq oo su'aal diiniya lagu weydiinayaa waxaad sheegaysaa maalinta la yidhaahdo yowmu shaki oo ah maalinta shakiga oo aan la yidhi lama soomiyo nebigu wuxuu dhahay lama soomiyo maalintaas waa maalintay tahay ma garanaysaa adeer may fariid maasha allah sidee assalaamu calaykum waraxmatullah عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بشير oo ku soo dhawow barnaamijka baradiintaada su'aal diini aan ku weydiinayna hadaad garato hadiyad baan ku siinaynaa insha Allah su'aashaas waxay tahay waa maxay maalinta shakiga ee aan la soomin maalinta shakiga waxa weeye maalin bisha Shabcaan maalin ka dhiman tahay bisha aan la arag aan wali la arkin bishaasna taan la arkin waatay waxa weeye ورمضان ورنتي سو صحي ما شاء الله صوصي لعكتيس سو استاك soo istaagalkan sida uu sheegay Bashiir waa sax weeye maalinta shakigu waxa maalinta Shacbaan sodonkeeda maalinta u dambeysay bisha Shacbaan ee laga yaabo inay Ramadaan noqoto ama Shacbaan ay ahaato marka uu saxay Bashiir hambalyan ku leenahay sidoo aragtaa Bashiir barnaamijkan waa barnaamij diiniya dadkuna waxa wacan inuu barto barnaamij aad u wacan ma sha Allah Allah ku barakeeyo hambalyo assalaamu alaykum rahmatullah alaykum salaam rahmatullah walaal magacaaga mukhtaar axmed ambale mukhtaar ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniyan ku weydiinayna haddaad ka jawaabto insha Allah hadiyad baan ku siinaynaa su'aashaas waxay tahay nabiga kaleey salaatu wasalaam hashi uu ku safray markuu soo hijroonay Makka ka yimi Madiina buu tagay hashi waxay fadhiisatay meeshii masaajid baa laga dhisay masaajidka magaalada Madiina hashaas magac caan ah bay leedahay magaceedu ma garanaysa ma garan maayo magaceedu dhib ma leha waad isku dayday insha Allah assalaamu alaykum alaykum salaam wa rahmatullah walaal magacaaga maxamed aadan maxamed oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniyan walaal ku weydiinayna waxay tahay su'aashaasi hashi nabiga magaceedii haddaad xasuusato ma xasuusni kulay imika ma xasuusatid imika dhib ma laha insha Allah waa inoo soo kordhiso baran doona insha Allah dhib ma leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا المقعة ولا شافعي محمد أحمد بلد شافعي سوير دور تكاميرا ذاك وارك شافعي كسر دور برنامج خبرات دين هذا سؤال ديني وكوي دينية هاشي النبي جمع عيدي مقرانس برواقة لا برواقة محات برواقة برواقة واحد هدا فرسي وكف النبي مركو إسراء والمعراج ها فرس كاسوها برواقة هاشي بل بهين هاشا حشا براق السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا مقعة حسن عبد الله حسن كسر دو برنامج خبرات دين هذا سؤال ديني ينكو ديننا سؤال شاس وحوي هاشي النبي مقع عيد مقرنس برواقو ما حاتر هذا برواقو ماي برواقو ما تكون عشان كذا مركله هلاها برواقة ولا ما بحية قبلها ينو بحنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعة ولا عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن وكسر دو برنامجك برد دين هذا سؤال ديني ينكو ديننا واحد كتشوابته النبي عليه الصلاة والسلام هشيسي مقعة عادي قباء الرشر حتى هذا قباء قبا هو مساجد مقعيس هذا يدا مساجد ماشي فريستة ما هاشو واحد فريستة مساجد مدينة قبا أنا وكير مساجد كلا كسكية لكن هو سود ويسنين أقول لبعته ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر كير السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله هذا المقعة خضر مختار خضر كسودو برنامج خبرات دين هذا سؤال ديني ينكو ديننا هاشي النبي مقعة دي مقرنس وحلا قصوى محات هذا قصوى نينكا صفري يدي بقعنت ما شاء الله الله أكبر هاشي النبي وحلا ديه تري قصوى بلا ديه تري نينكا ساقرتي لعقتي سنة وهلي يا هدي يدي سي ما شاء الله
hambalya baan ku leenahay adeersad u aragtaa barnaamijkan barnaamijku wacan aad u fiican in halka laga sii wado hore loo sii wadana way fiican tahay barnaamijku maadaama uu yahay barnaamijka diinta islaamka waa in halka laga sii wado hore loo ما شاء الله aad bad u maadsantahay hambalya ayaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullah calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga adeer khadar cabdu khadar waxaad sheegaysaa su'aal diin ayaan ku weydiinaynaa waxaad sheegaysaa suuradda la yiraahdo suuratu al-mujaadala ama qad samic waxay ku soo degtay gabadh bay ku soo degtay arrinkeeda nabiga la doodaysay qad samica Allahu qawla allati tujadiluka gabadh baa nabiga la doodaysay gabadha saxaabiyada ah magaceeda ma garanaysa ma garanaysa dib ma leeyahay adeer isku day ma sha Allah السلام عليكم وعليكم السلام magacaaga adeer maxamed salaam balaal maxamedow su'aal diiniyaan ku weydiinaynaa kuna soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aashaasi waxay tahay waxaad sheegtaa gabadhii ay ku soo degtay arrinkeeda suuratu qad samic ama al-mujaadala khuwaylad bint thaclaba allahu akbar faa'iido khuwaylad bint thaclaba mar kale aan ku celinay si loo wada faa'iideysto gabadhaas waxa la dhihi jiray khuwaylad bint thaclaba waxay isqabeen saxaabiga la dhihi jiray aws ibn thabit ayay isku dhaceen deetana dihaar buu ku sameeyay dihaarkuna waxa weeye inuu qofku dhaho hooyada iyo kala diga mid xaraan hooyada xaaskaaga hooyada ma la mid noqonaysaa waa maya marka wad baadsan tahay lacagtiisii uu helayaa hambalyo oo masha Allah saad u aragtaa barnaamijka foonkaan qabo saad u aragtaa barnaamijka noota su'aal horaan garan garanaysa laakiin wuxuu ku fiican barnaamijku waa kala faa'iideysi qofku waxa diintii in arday dib loogu yar noqdo qofkii aqoontii wax ka barto diintii qaybtii maadiga wax ka barto marka barnaamijkan aad baan soo dhaweynaya waxaan leeyahay diintana la barto wad maasantahay hambalyo way su'aal adag buu furayna kaas السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga walaal محمد أحمد جامع maxamed oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniyaan ku weydiinaynaa insha Allah haddaad ka jawaabtana hadiyad baan ku siin doonaa su'aashaasi waxa weeye warwaba liqay subhanallah Google buu eegaya Google buu eegaya u kaad wadway Google buu eegaya waxaad sheegaysaa walaal Umar bin Khattab saxaabigii la dhihi jiray nin gaala ayaa dilay oo maaragtay isagoo salaada subax dadka tujinaya toori ka taagay ninka ma garanaysaa gaalkii majuusiga ahaa oo dabka caabudi jiray nima muslimka lagu qaataan oo gaadada nafsiga malihin ninka horta gaalka deegaanka horta wax amaaniyo inaguma leeyahay habaar mooyaan wax kale nagama shaqaysan saxaabi nabi buu dilaybe laakiin se waa nin caano diinta ku caana oo magac buu leeyahay ma xasuusataa may wallah ma xasuusan insha Allah marka doorka dambe ayaan kuwa muslimiinta ku weydiin doonaa hadii ilaahay ka dhigo عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga walaal أنا محمد عمر بالي محمد عمر شاع maxamuud oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniyaan ku weydiinaynaa insha Allah su'aashaasi waxay tahay ninkii dilay Umar bin Khattab ma garanaysaa لؤلؤ المجوسي ولا ku soo celi dadkoo dhan ha maqlaane لؤلؤ المجوسي ولا أبو لؤلؤة المجوسي ninkaas afray su'aashi ma sha Allah inkastoo gaal oo ahaa laakiin waad sheegtay lacagtiisina uu leeyahay qabso sawarta barnaamijka barnaamijka aad buu fiican yahay waayo diinta in la barta ayuu kulli ku dhiirigelinaya dadka marka faa'iido aad wanaagsan buu leeyahay insha Allah ma sha Allah aad ma santa hambalyo السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga walaal magacaaga سعيد عبد الرحمن محمد سعيد oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniyaan ku weydiinaynaa insha Allah dadka jawaabto hadiyad baan ku siin doonaa biidnillah su'aashaasi waxay tahay nabiga walaashii ma garanaysaa xagga naas nuujinta nabigu keligii horta markii hore madib oo ahaa abihi hooyadii keligii bay dhaleen laakiin xagga naas nuujinta Xaliima bint Saadiya ayaa nuujisay marka gabadh ay walaal yihiin oo magaceeda ma garanaysaa wallahi ma hadda ma xasuusto ma xasuustid dhimalaha oo isku dayay walaalkeen insha Allah faa'iido u noqon doonto السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal ku soo dhawo barnaamijka baradiinteena insha Allah su'aal diiniyaan ku weydiinaynaa dadka jawaabto hadiyad baan ku siin doonaa su'aashaas waxay tahay saxaabigii loo yaqaanay Abu Bakr Siddiq wuxuu dhalay 3 gabdhood buu dhalay marka 3 gabdhood laba kamid ah hadaad sheegto hadiyadan ku siinaynaa 3 gabdhood buu lahaa Aisha oo xaaskii nabiga ahayd haye laba kale ayuu labada kale mid kale ka sheegay kuguma dhibanay
مريم dhib ma laha waad isku dayday allah ku barakeeyo assalaamu calaykum waraxmatullah calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga cawl cabdi saciid cawlow ku soo dhawo barnaamijka baradiinteenna insha Allah su'aal diini aan ku weydiinaynaa haddaad ka jawaabto hadiyad baan ku siin doonaa su'aashaas waxa weeye saxaabigii loo yaqaanay Abu Bakr Siddiq 3 gabdhood buu dhalay 3 gabdhood laba kamid uu noo sheeg caasha haye asma يا أسماء ما شاء الله نكا سافر سؤاشي لعقتي سنة ولا هي وعاشا هي قلت طبعا سؤال سيده صحده كنت هاي صدخ gabdhood uu dhalay Abu Bakr Siddiq waxay ay kala ahaayeen Aisha oo xaaskii nabiga ahayd iyo Asma oo waxa qabay Zubayr Zubayr waxa gabadha saddexaadna waxa ay faa'iideysay u noqoto Umm Kalthum baa la dhihi jiray waxaana qabay Talha marka Abu Bakr Siddiq ilaahay Allah ka ahaaday inuu nin barakeysanaha waxa lagu garanayaa saddexdii gabdhood ee uu dhalay midna nabiga guursaday midna Zubayr baa guursaday midna Talha guursaday Zubayr iyo Talhana 10 mubashirin baa kamid yihiin مبروك الله يبارك سادو أركت برنامجنا برنامج عادي عاد ونكسم إن شاء الله تعالى الله يبارك فيك ود ما سنتهي برنامجك برد دينتنا سؤال ديني كويتين إنها هدتك جوابته إن شاء الله تعالى هديت بنكسيننا مركو رمج عاجن وشيء مبارك محمد صالح مبارك وكسر برنامجك سؤال شن كويتين وحوي نبي موسى عليه السلام markii uu maaragtay uu tagay nabi khadar uu la kulmay wiil yar baa u adeegay oo shaqeynay fatha Musa buu quraanku sheegay id qala li fatahu markuu wiilkiisi la hadlay wiilka magaciisa ma garanaysa markii dambe nabi buu noqday wiilkaas ii bedel garmay lama bedeli soo soco السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. magacaaga walaal عمر جامع محمد. عمر oo ku soo dhawo barnaamijka diinteena su'aal diiniyan ku weydiinayna hadad ka jawaabto insha Allah lacag baan ku siin doonaa su'aashaas waxa weeye wiilkii uu adeegayay nabi Muuse markuu ku socday si uu la kulmo Khadar ee Quraanku ku sheegay fatha Musa wiilkii nabi Muuse magaciisa ma garanaysa Yuusha baa loo jiray Allahu akbar su'aal adag weeye Yuusha baa la dhigi jiray markii dambana nabigu noqday nabigu noqday maxaad ka xasuusataa والله قصدي ده قرآن كي كتلا إما كأد محسوسنا وكذي سوي وكذي سوي دي مالها لعقتي سوي لي هي وحلا دي تري نكاس ما رأيت ويلكا يوشع ابن نون أيلا دي تري وأنا النبي جي قرحه أي سوتاكتي ما قش النبي جي قرحه سوتاكتي يوشع ابن نون أيلا دي تري قرحه أيا سوتاكتي قرحه أمره كوري استاج مكاسي استاكتي مركا ما شاء الله أعطيت مع سنتاي همبلينا كلية ما شاء الله ويا السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله المقعد محمد أحمد يوسف. محمد أو كسر دوا برنامج كبرد دينتنا سؤال ديني أكو ديننا هدات كجوابته هدية بنكسين دونا سؤال شاسوحة أي تهاي صحابي عرش الرحمن كوجل جلمي مركور أنت ما قرناس الصحابي عرش الرحمن كوجل جلمي عرش إلهي أيا جلمي بقى سعد بن وقاف سعد ها سعد صحابة بدون سعد اللي هذا كذا مركها هذا أنت دم كدرته ده أما قال هذا صاحب منهم بينهم نقنيس لكن سعد كسوة كوما سعد بن وقاف سعد بن وقاص ما يما هو ولا لكن هو تسكت يدوي ما شاء الله وانا تسوي ويسي ما شاء الله هذا هذا بدك تشوف السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. والله المقعد عبد الله إسماعيل. عبد الله وكسر دوا برنامج كبرد دينتنا سؤال ديني أكو ديننا سؤال شاسنا وحي تهاي صحابي عرشك إلهي أما عرشك الرحمن كوجل جلمي هذا تقرنس سعد بن معاذ بوها سعد بن معاذ نكا سافر مركا الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله لعكتي سؤال لي هاي قبصو هذه سعد بن معاذ إلهي الله كهذا النبي يقول حداهي اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ عرشك الرحمن كأيام مارتوج الجلمي مركو دينتي سعد بن معاذ إلهي الله كأظن وحوا دي صحابي شرف لبوها والله السيدة بدورة برنامج والله إذا واحد مركز برنامج وانا كتمان مركز دين تدبره ما شاء الله همبليان كلنا والله واي السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. مقعد ولا مختار محمد الله. مختار وكسر دوا برنامج كبرد دينتنا سؤال ديني أنكو ديننا إن شاء الله سؤال شاسنا وحوي هذا هرتقرته إن شاء الله هديت بنكسين دوننا بإذن الله سؤال شاس وحوي النبي عليه الصلاة والسلام مركي ودري صحابة بدن وحوي هجرودين دول كحبشيدا مركا بقر كل دي ترين نتاش أي الله كل ما يسودوي مركا صحابة
nin baa afhayeen u ahaa saxaabiga afhayeenka u ahaa u hadlay ma garanaysa saxaabiga afhayeenka u ahaa ee u hadlayay saxaabada dhankeeda markuu najaashi weydiinayay saxaabada dhankeeda أصحابي أصحابي وأصحابي أهل البيت كمدا بلال ما بلال ما بوه جرون بقى ما قرن لما له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعد قولان مقعد عبد الرزاق حسنوي عبد الرزاق كوسو دو برنامج خبرات دينتنا سؤال ديني أن كويديننا هذا كجوابته إن شاء الله هديت بنكسين دونا بإذن الله su-aashaas waxay tahay markii nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu diray dhulka xabashida ee ay la kulmeen boqorkii najaashi saxaabiba afayeen u ahaa oo u hadlayay saxaabada dhankeeda ma garanaysaa saxaabiga haddaan isku dayo wuxuu ahaa saxaabigaasi Zubayr bin Awaan Zubayr mu ahayn Ahmed bin مضلب هذا واد اسكو دايداي لكن نين ديرن باتay واد اسكو دايداي لكن ما جواب صح ما نلو خلق قبيل قاطر فايدين ملا ان شاء الله السلام عليكم عليكم السلام هذا magacaaga سلمان اسماعيل سلمان oo ku soo dhawo barnaamijka baradiinteena su'aal diiniya ku weydiinayna waxa sheegtaa afayeenkii saxaabada saxaabada markaa u hadlayay markii ay la kulmeen boqorkii najaashi la dhigi jiray taan isku dayo waxaan malaynaa Jaafar maxaa tiri Jaafar ayo haye وتصحسن تهي جعفر وها لكن جعفر أيوي شان عبد المطلب سوينا إنسان جعفر ابن أبي طالب واد ما اسمه عاقل سعودي سلمان أرد صحابي قاسوحها جعفر بوها وانو صحي قبص العكت هذا ما شاء الله وكاد إنتانا تجين الله أكبر كيو ويل يرو فريدة وي هل كانت كبرت من مدرسة دالو كبري ما شاء الله الله كسي وضو حن كل رجلين الناس سلمان إيه أنت في عيسى إن أي برتان تين تودا سيدني كاي ربوا برتي ما شاء الله وانا ما سنتي مبروك هنبلي يعني كل هذا ساعد ورك هذا برنامج كوفي عين يا سما ما شاء الله هنبلي وين ما برنامج وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعولا عبد القادر waxaan barnaamijka baradii intaada ayaan su'aalka weydiinaa su'aashaas waxay tahay waxa sheegtaa inta sujuudood ee ku jirta quraanka sujuudu tilaawa inta sujuudada ku jirta quraanka salaada miya sujuuda marka quraanka la akhriyo qiraa'ada la akhriyo la sujuudo quraanka meelaha ku taal ku jirto waa imisa waa shan sujuud oo garamid wala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعولا. شافعي وحدونا برنامج برد انت هذا من سؤال كوديننا سؤالها صواحي هاي سجود التلاوة من سجود التلاوة يا كتير القرآن. تضويته. قربي دولا. دمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعدر. شام أحمد بليرة. شام لو حمدونا برنامج برد انت هذا سؤال كوديننا سؤالها صواحي هاي سجود التلاوة من سجود التلاوة كتير القرآن. إيه. سجود التلاوة. سجود القرآن كأخرده. مسمى رد بلا سجوده. لا بقور. دمله. أتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مقعولا. إبراهيم waxaan doonaa barnaamijka baradiinta hada inaan su'aalka weydiino su'aashaas waxay tahay imisa meelood ba la sujuudaa sujuud tilaawaha marka quraanka akhriyaysid imisa jeer ba imisa meelood ba la sujuudaa ku jirta sujuudo waxa weeyaan 15 sidan ku ogahay 15 ha واي ما شاء الله صح بارك الله فيك صحي الله أكبر ما شاء الله بارك الله سؤاشاس وشاقي إبراهيم وحويان سجود التلاوة شن يطبن سجودات بقرآن كشرة مركا صاحب الله صعدا ها مركا وحلا يهاي برنامج برد أنت رصادر إبراهيم واصح ويان قف كدين ودين تسع علم ويا شوية
wax la isweydiiyana dee diin baa ugu fiican maasha allah sax marka ambaliyo allah ybarik fiik assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام magacawlan عبد الرحمن cabdiraxmaan ayo cabdiraxmaan aadan waxaan doonaa barnaamijka baradda intaada inaan su'aal kaa weydiino waxaa jira saddex qof ee ilaahay hadday baryaan aan baryadooda la celin noo sheeg وقفك أنا والدك أدعين qofka waalidka adeeca ما أنا أدعين أنا أدعين طيب ما هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعولا إسماعيل محمد إسماعيل محمد وحنا برنامج خبرة دينت هذا سؤال كوديننا سؤال شخص واحد تهي صدق قف إلهي هدي بريان أم بريضة العلن إلهي كأقبله ماشي صدق قف هدي بريضة إلهي كأقبله إلهي بريان إلهي كأقبله ووالدك هاي يا والدك هاي يو يا النبي إله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعولا محمد مسجع محمد شاع عندنا برنامج كبرت دينت هذا سؤال كودينا سؤال شخص واحد تهي صدق قف هدي إلهي بريان أم بريضة العلن إلهي كأقبله مقع يضد النوشيك والوالد أيه المسافر أيه الصائم الصائم ها ما شاء الله الله أكبر الله أكبر أرسل العكس ما شاء الله أرسل العكس هنيك شكرا ما شاء الله يبارك صادرت برنامج كبرت دينت هذا horta su'aasha uu ka jawaabay maxamuud muuse jaamac waxa weeyaan saddex qof ee baryadooda aan la celin wuxuu ku sheegay waalidka musaafirka iyo saa'imka saddexda qof baa ka mid ah marka waa saas oo sax ku tahay barnaamijka baradda inta saad u aragtaa wallahi si fiican baan u arkaa diinta baad ku baranaysaa su'aalan ku faa'iideysanaysaa dad garan weydina dawaad dhiirigelin bay ku tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعولا عدنان بلنا عدنان أيوه عدنان محمد شاع عدنان محمد شاع waxaan doonaa barnaamijka baradda intaada inaan su'aal ka weydiino su'aashaas waxay tahay waxaan sheegtaa arkaanta xajka أركان حجك أنا كيف فكر بالواي إيه كيف فكر عادي كل يوم حكم ميدان إن للضوافين مساجد هي كو طواف ها iyo وقوف عرفة طواف فربضين قريب بدن بقول طواف كسو طواف ما سي تعريف وطواف الوداع ويا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعا ولا يوسف جامع يوسف جامع وحدنا برنامج كبرت انت هذا سؤال كويديننا سؤال شخص waxay tahay arkaanta xajka ama tiirarka xajka noo sheeg waa imisa arkaanka xajka ama tiirarka xajka walix arkaanta xajka waa lix السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام مقعا توكل عبد الرحمن 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 حضور برنامج كبرت انت انا سؤال كويديننا سؤال شخص waxay tahay arkaanta xajka waa imisa qofku inuu markuu qaan gaadho inuu awoodo inuu tago السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله توكل أحمد توكل أحمد توكل أنا حضرنا برنامج كبرت أنت هذا سؤال كويتينه سؤال شخص واحد أركان تحشك برشاق مسوي أركان تحشكو وعشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله عاول عبد الرحمن عبد الرحمن waxaan doonaa barnaamijka baradda inta aan su'aal ka weydiinana su'aashaas waxay tahay arkaanta tiirarka xajka ee qofku haduu wax weeyaan la iman waayo xajkiisu aan ansaxaynin noo tiri markuu xajka tago xajka tago waxa markuu isee macnay wal xajka markuu soo xajiyo qofku xajka tago markuu soo xajiyay markuu xajka markuu xajiyo tiirarka hadduu la iman waayo aanu xajkiisu ansaxayn xajka badda aanu ansaxayn ayuu xajkiisu burayo aanu xajba u jiraynin tiirarka noo tiri tiirarkaas omisa tiirarkaas hadeen tiirarka ma hafsada dirwaanan dhimal wala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu magaca wala nuux maxamed baliya
nuux maxamed waxaan doonaa barnaamijka bara diintaadana su'aalkaa weydiinaynaa su'aashaas waxay tahay tiirarka xajka oo qofku hadduu wax la iman waayo xajka markuu tago tiirarkaa la iman waayo xajkiisu aanu ansaxaynin tiradoodu waa imisa tiradoodu dee hal baan kugu tirinaya haye sax wey dee kow inuu niyo la yimaado haye inuu la yimaado ixraam haye inuu la yimaado dawaaf haye dawaaf alquduum iyo dawaaf alwadaac iyo dawaaf alkalima waa jira laakiin dee inuu dawaafkii markuu niyadda iyo ixraamka la yimaado wuxuu ka bilaabanayaa inuu dee u baxo muna dabadeeto carafo tago oo aanu carafo ilaa uu tago dee ma jira baa laynagu yidhi arkaanta carafa ka mid aan ku hayaa ixraamka carafo inuu istaago iyo ixraamka waa labo haye soo laba ima haysid inuu dhagaxa ka soo gurto mustalifo dee uu tuuro xajul akbarkii maalintii dee inuu tuuro oo iyaduna dee taasi macnihii wuu iska waafaqayaa miya haddii taa laga gudbo macnihuu iska jirayaa miya waayahay iminkaan ka soo bilaabaya inuu niyo la yimaado inuu ixraam la yimaado inuu carafo istaago oo intaasoo la sheegay la'aanteedana waxaa jirin dawaafku fara badan dawaafku waa maalintaa dhagaxa la tuuro ka rasmiga ahi wadaacii iyo maaha kii hore maalintaa dhagaxa la tuuro magaciisa ma lahayn dawaafka dawaaf al-idaafa dawaaf al-idaafa ma sha Allah mid waa ku hadhay waayahay markaas dawaaf al-wadaac wuxuu ahaa kii kale dawaaf al-ifaada waan gartay hal mid baa ku hadhay tiirarkii mid baa ku hadhay mid baa hadhay soo maaha xabad qura ku hadhay saddexdii dhagax tuuradii may isuga haddaba markaa ku xooye xagga iga dhaafaysay waa soo xajiyey marar badan baan xajiyey laakiin kuwa aan sharci ahayn baan malaa iskaga darayey dawaafkaasi wuxuu ahaa baradiina markaa waa laga munaa lagu soo noqday saddex habeen dee in markaa dhagaxa la tuuro dhagaxii dee saddexdii cashee dhagaxa la tuurayey saddexdii cashee dee dhagaxa la tuurayey ee aan lagu baryaynin dawaaf al-ifaada marka laga yimaado maxaa la imanayaa dawaaf al-ifaada safa walmarwa ma sha Allah Allah ya sa'i bayna safa as-sa'i bayna safa walmarwa sida aragtaa horta su'aasha uu ka jawaabay ninka la yiraahdo nuux maxamed waxa weeye arkaantii tiirarka xajka oo qofku hadduu waxa weeye aanu la iman xajkiisu aanu ansaxaynin waxa weeye ixraamka maxay haytay carafa inuu istaago maxay haytay sa'yu dawaaf al-ifaada as-sa'yu bayna safa wal marwa afartaas weeyaan سيدوا تاسو لعقنا وانا سيدينتي وانا بري امتي لهينا ما شاء الله بارك الله فيكم